Marka dad badan maqlaan magaca Ingiriiska waxay ka fikiraan nolol raaxo leh iyo hanti badan, laakiin maanta waxaan tusayaa dhinac kale oo aan caadi ahayn. Meel dadka deegaanku ay ku nool yihiin saboolnimo, sanadka dhan waxaa loo qabtaa miisaaniyad ka hooseysa. We don't get out in the next couple of weeks, we wouldn't survive. Haddana weli rajadoodu aad bay u sarreysaa. Asxaabta qaaliga ah, maanta waxaan joogaa magaalo lagu tilmaamo tan ugu saboolsan Ingiriiska. Nolosha halkan aad bay uga duwan tahay magaalada weyn ee London. Sidaas darteed waxaan go'aansaday inaan halkan maalinteeda ku qaato. Waxaan la kulmay dadka deegaanka, qaarkood waxay sheegeen in noloshu aad u adag tahay oo meel dadkeedu ay wajahayaan nolol adag, balse waxaan doonayaa inaan idin tuso xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta halkaas. Safarkaygu wuxuu bilaabmayaa anigoo gaari saaran. Waxaan ku socdaa tuulo loo yaqaan tan ugu saboolsan Ingiriiska. Waxaan qaatay ku dhowaad 2 saacadood ilaa aan ka gaadhay. Markii aan soo galay magaalada, waxaan go'aansaday inaan istaago goob cuntada lagu cuno si aan wax yar ugu nasto. Halkaas ayaan kula kulmay 2 qof oo deegaanka ah. Midkood wuxuu ahaa nin degan, kan kalena waa saaxiibkii oo wuxuu isku qaay xidhay. Waxaan bilaabay inaan sheeko la wadaago si aan wax badan uga ogaado xaaladda noloshooda. Markii aan magaalada soo galay, waxaa markiiba ii muuqda dhismayaal duugoobay, wadooyin cidhiidhi ah iyo dad badan oo shaqo la'aan ah. Magaalada waxaa lagu tilmaamaa tan ugu saboolsan Ingiriiska sababtoo ah dakhligeedu aad buu uga hooseeyaa, shaqooyin badan ma jiraan, laakiin haddana wejigooda waxaa ka muuqda rajo iyo dulqaad. Waxaa laga dareemayaa in kastoo ay dhaqaale yari jirto, haddana dadkani ay isku duwan yihiin, waxayna isku dayayaan inay nolol fiican dhistaan. Waxay yaab igu noqotay sida ay igu soo dhoweeyeen, inkastoo aan ahaa qof marti ah oon halkaas waxba ka aqoon. Waxaa markiiba dareemaysaa diirimaad iyo kalgacayl xitaa meel dhaqaaluhu uu aad u hooseeyo. Waxaan booqday guri yar oo uu leeyahay nin lagu magacaabo Dani. Markaan gudaha galay, darbiyada guriga waxaa ku sawirnaa taariikh iyo xasuus badan oo ka tarjumaya magaalada ay dadka badankiisu ku nool yihiin saboolnimo, balse lagu yaqaan in qiimaheedu aad u jaban yahay. Hooyadiis ayaa dhimatay isagoo weli da'yar ah oo 14 jir ah. Wuxuu ku qasbanaaday inuu isagu naftiisa soo koriyo. Marar badan ayuu galay xabsiyada noloshiisa, waxaana ka buuxa dhibaato iyo jahawareer noloshiisa, laakiin halkaas kama uusan hadhin. Haddana waxay noo sheegayaa inuu doortay oo uu rogo sheekadiisa iftiin. Wuxuu furay goob uu bulshada ugu qabto kulan dhiirigelin ah, halkaasuu dadka ku baro in caqabad walba loo rogi karo fursad. Sheekada Dani waxay caddayn u tahay in geesinimada iyo go'aan qaadashadu ay ka sarreyso duruuf kasta oo adag. Iminka waxaan u soconnaa magaalada. Ninkan Dani ahna wuu ina kaxaynayaa. Waa nin furfuran oo kaftan badan. Intaan jidka ku sii jirno, inoo sheegayaa markii ugu horreysay ee aabihii magaalada yimid ay ahayd 1986. Markaasna uu iibsaday 3 guri oo yaryar. Waxayna tusayaa qolkii hurdada uu carruurnimadiisii seexan jiray isagoo leh, meeshan ayaan ku ciyaari jiray, waa guriga aan ku soo koray ilaa aan ka gaadhay da'da 12 jir. Iminkana wuxuu salaamay nin deegaanka ah oo lagu magacaabo Tony. Ninkan ayaana baraya isaga, waa saaxiibkeena 6aad aan isbarano. Ninkan ayaa ka odhanaya caalamka hal kelmada la wadaag. Kadibna nin kale oo goobta jooga ayuu la hadlayaa, uu iskaaga barayaa sidii ninka hore ayuu fariina la wadaagayaa. Ereyadaas yaryar waxayna barayaan cashar qoto dheer, sababtoo ah farxadda dhabta ahi maaha lacag iyo hanti, balse waa dhool caddeyn, rajo iyo wadajir. Chegwick waxay dadka adduunka baraysaa in farxaddu ay ka bilaabato qalbiga. Waxaan sii wadaynaa socdaalkeena magaalada, isagoo inoo sheegaya sanado badan ka hor halkan waxaa ugu dambeysay in la maalgashado, laakiin hadda wax walbaba way isbedeleen. Guryo cusub ayaa laga dhisayaa, goobaha ganacsiga sida dukaamada, dharka, xamaamyada iyo suuliyada dadweynaha ayaa muuqda. Magaalada waxaa ku badan dadka waaweyn ee da'da ah. Ninkan wuxuu inoo sheegayaa in ujeedada magaalada loo dhisay ahayd in dadku ay fasaxyada ku nastaan. Dhibaatooyin hore ayaa jiray, dagaallo iyo qaraxyo badan ayaa burburiyey guryo badan. Inagoo socodkeena sii wadanaya, waxaan la kulannay ninkan oo Dani ku sheegay inuu saaxiib la ahaa 20 sano. Waqtiga xabsiga ku jireen ayayna isbarteen. Markii ay yaryaraayeen sanadkii 1980, wuxuu ii soo diri jiray lacago iyo joornaal aan akhristo. Sababta ah xabsiga ayaan kaga dambeeyey ayuuna odhanayaa. Waxaa kaloo inoo sheegayaa ninkani waa qof aad u daacad ah. Haddii aad saaxiib la noqotana wuxuu kaaga filnaan karaa 10,000 oo qof oo nacab ah. Hadda ninkan waxayna tusayaa wadooyin jajaban oo shaqadii joojiyey, sababtoo ah sanadkii 2016 Donald Trump xilligii ololihiisa doorashada ayaa sawirka wadadan uu soo qaatay. Tan iyo markaas magaalada ayaa dib loo hagaajiyey, wadooyinkana hadda waa kuwa habboon. Sheekadan waxay muujinaysaa adkaysiga uu keeni karo iyo horumar. Iminka waxaan joognaa xeebta magaalada. Waxayna tusayaa ninkan oo ah nin aad u furfuran, sheeko gudbinta ku wanaagsan. Intaan halkaas joogno, wuxuu ii sheegay in xeebtan ay tahay meel muddo dheer jeclaa,
xitaa ilaa barsimaadkii uu iman jiray. Markaan ku soconno xeebta wuxuu si faahfaahsan u sharaxay sida xeebtu u ahayd goob lagu nasto dadka deegaanka iyo carruurta ay ku ciyaari jireen iyo sida ay dadka fasaxyadooda ugu soo dhoweeyaan meeshan. Waxa uu sidoo kale inoo tilmaamayaa meesha ay dadku ku kulmaan xilliyada firaaqada iyo sida deegaanka uga muuqdo mid nolol ah inkastoo horumarkiisu hore u yaraa. Ninkani wuxuu ahaa qof aad u furfuran oo qosol iyo kaftan badan, taasoo ka dhigtay safarkayga mid xiiso iyo madadaalo leh. Intii aan xeebta ku wareeganay waxaan dareennay sida uu qofka ula xiriiri karo dadka deegaanka, wuxuuna ii caddeeyey in sheeko gudbintu ay tahay furaha fahamka nolosha dadka halkan ku nool. Balse xeebtii sidaa loo jeclaay imaanshaheeda waxay u dambeysay in caarooyinka u hoydaan. Iminka waxaan arkaynaa ninkan oo lagu magacaabo Jay oo sheegay inay is yaqaanaan muddo 20 sano ah. Jay waa qof dadku jecel yihiin, wuxuuna leeyahay dhaqan wanaagsan oo bulshada ku dhex milma. Magaaladan waxay leedahay jawi degan oo bilaa buuq ah, waxaana hadda ka agdhow wadda inagoo ku lugayn doonaa ciidda dusheeda. Markii aan soconay nin kale ayaa inaga soo horbaxay, wuxuuna noo sheegay in goobtan ay aad u wanaagsan tahay. Intaas kadib waxaan u dhaqaaqnay guriga ninka ugu farshaxsan magaalada ayaana booqan doonaa. Markii aan gudaha guriga galnay waaba yaab, darbiyada guriga waxaa ku dhajisan sawirro badan oo taariikh ah, waxayna muujinayaan waxyaabo badan oo ninkan ku saabsan noloshiisa. Guriga banaankiisa iyo gudaha labadaba waxaa ka buuxa xasuuso iyo farshaxanno, waana 83 jeer oo jili jiray filimada waqtigii uu yaraa. ugu dambeyn fariintan ayuu inala wadaagay. Love each other and leave the world to get on and don't worry about sorting it out. You can sort your own problems out. Fariintan waxay xambaarsan tahay xigmad qoto dheer, waxay naga dhigaysaa sida qof walba noloshiisa u qaaban karo kalsooni iyo farxad. Marka laga soo tago muuqaalkan quruxda badan ee xeebta iyo magaalada, barnaamijkan wuxuu dadka tusayaa in farxadda dhabta ah aysan ku xirnayn hanti, balse ay ku jirto qalbi wanaagsan, isku kalsoonaan iyo isjeclaysi bulshada dhexdeeda ah. Waxaa la baran karaa in qof walba uu ka faa'iidaysan karo inaad dulqaad yeelato, saaxiibo wanaagsan yeelato iyo farxad iyo inaad rajo la wadaagto dadka kale. safarkan wuxuu caddaynayaa in kastoo duruuf adeeg ay jiraan, haddana noloshu ay had iyo jeer leedahay dhinacyo qurux badan.